كل وعنا وناقصنا غيرتها ودنا لحرتها halkan oo barta YouTube-ka kulana marba nagala socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay dagaalada ka socda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Shabeellaha Dhexe iyo Masaajid Cali Guduud waxaan kala soo qaadan doonaa dagaalka Eritrea iyo Ethiopia oo markaani miciyaha la isku baxay wixii hore wax way soo dhaafeen hadda waxa la isla galay gudaha dalka Ethiopia ayadana oo falaqayn doonaa in Abiy Ahmed oo ku fashilmay qorshihii uu ka lahaa ee dalka Eritrea maadaama uu Djibouti doonayay in markaas garab istaag ka helo oo ku fashilmay arintaas sababta uu fashilmay iyo qorshaha socdo ayaa ayadana soo qaadan doonaa waxaan kala soo qaadan doonaa Ameerika magaalada Hargeysa marka ninka lagu magacaabo Abdikariin Axmed Mooge oo xilka laga tuuray maxaa loogu murmursmooday ayadana soo qaadan doonaa dagaalka SC Khartoum iyo Somaliland isku tuurka ka socda magaalada Og oo madaafiicda isku tijaabsanayo iyo qorshaha socda bacda Ciid ayaan markaas soo gudbi doonaa waxaan kala soo gudbi doonaa in dagaalka ka dhacay Boosaaso maanta sida oo markaas u dhacay iyo ciidda markaas dagaal ka dambeysay iyo magaalada dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay barnaamijku waxa uu soo saaxiibka Fargood aan rabaa wax ku weydiiyo barnaamijyadaas oo dhan Fargood barnaamij ku soo dhawo Tigrayga iyo arinteedina gadaal ayaan kaga dari doonaa qaybta dambe ee guusha ay ka gaareen Abiy Ahmed marka hore waxaan rabnaa inaan ka hormarno Abiy Ahmed wuxuu ku fashilmay garab istaagga Djibouti uu ka raadiyay Abiy hadda wuxuu garab ka haystaa kaliya nimanka lagu magacaabo Imaaraadka Carabta dawladda Eritrea toddoba wadan haysta oo taageer ah waxay kula noqon kartaa marka Abiy oo hal Imaaraad haysto iyo Eritrea toddoba wadan haysto soo fashil weyn odagii laga helo moogel gooni aad iyo aad baad mahadsan tahay maraan maxaan ku dhahay aan fisaa u fiirinayay waxyaabihii ugu dambeeyay ayaa waxaan arkay Abiy meel uma roona meel yani ciwaan looga dhigay ayaan arkay Abiy meel maanta ama Ethiopia hogaaminayo meel uma roona dagaal la'aan iyo inuu heshiis la galo uma roona inuu dagaal qaadana uma roona inuu heshiis qolyahan dhaho waan heshiinaynaana uma roona oo waxa weeyaan horta adigu xilka baneeba yaa ku xidhan adigu horta bal meesha banee oroma tahay dalkan Ethiopia ma hogaamin kartid waliya Allah ma soo hogaamin haddana lagu hiba deeqa u galayso Ethiopia marka yani waxa weeyaan waa ka dheero weey siyaasadda iyo hogaanka dalka Ethiopia dhanka kalena waxa weeyaan dagaal uma roono dagaal hadduu qaado waa laga guuleysan Eritrea iyo Ethiopia xaaladooda meel xun bay maraysaa nimankii Tigrayga ahaa kumayna khasaarin heshiiska ay la galeen Eritrea laba xaalo labadu way siisay waana loo soo mariyay labada xaalo siisay waxa weeyaan dhaqaale fara badan oo looga keenay dalka Masar oo nimankan lagu yiri Abiy waxa idin ma siinin anaga malaayiinta dollar ee siinay Abiyana kursi ka tuura maxaan ku dhac ciidamadiina iyo qorshihiina iyo wixiina ku dhis horta waa leeyahay mid labaad percentage yar oo canshuura ayaa laga qaadayaa baabuurta iyo ganacsiga ka soo xidha magaalada Casab iyo dekedaha dalka Eritrea ee u socda Makale iyo deegaanka Amxaarada iyo u socda maxaan ku dhahay deegaanka Tigrayga u socda percentage yar baa la saaray baabuurka 8 saac buu u socda baabuurka aroorti ka soo booda 9 iyo barka wuxuu imanaya maxaan ku dhahay magaalada Makale iyo wuxuu imanaya adiga reed iyo deegaanadaas imanaya Ethiopia marka canshuurteedii iyo cunaqabataynteedii iyo hawsheedii waa laga raystay wariyaa wuxuu taagnaa kiilada basbaaska cagaaran la yiraahdo Ethiopia caanka ku tahay canjeerada ay ku darsato ayaa wuxuu marahayaa baa lagu leeyahay maxaan ku dhahay 800 oo bir buu maraya meesha hadda ka hor uu ka ahaa maxaan ku dhahay kiilada 150 iyo wax aan macno lahayn uu ka ahaa yani makala waxay ahayd meel lagu kala guuray bay meel ayaan daran bay ahayd oo waligeed iyo Allah nolol ayna ka jirin bay go'doon bay ahayd Abiy ugu talagalay waa xilligii xulufada ay ahaayeen marka waxa la yiri masaa'ibu inda qowmi faa'ida waxay leeyihiin jireen balaayo kale qoom kale ku dhacda qolo kale faa'iido u tahay qolo kale ayay faa'iido u tahay marka waxa weeyaan nimankii Tigrayga ahaa ganacsigii bay heleen lacag bay heleen ciidamay tababarteen hadda ciidamada maalkii dhaweeytay ee soo qaran jabiyay Abiy uu leeyahay lacagtii ugu faraha badan ee ugu talagalay in dib u dhis lagu sameeyo deegaanka Tigrayga waxa ka badan lacagta ay ka heleen waxa ka badan lacagta ka heleen Masar iyo Qatar iyo Sacuudiga lacagta ka heleen ba ka badan ee uu yiri ciidamadii u leexiyeen meesha kaabiyaasha dhaqaalaha lagu sameyn lahaa marka Abiy hadda wuxuu taagan yahay waa kii hadda bayaanka soo saaray ku yiri idinku dhista idinku maamulkiina madaxweynihiina iyo wixiina sharciga uu waafajiyo waa kii yiri dhista maxaa ka keenay inuu dhaho dhista
soomaalida looma dhaha dhista idinku madaxweynaha doonaysaan soo doorta lama dhaho amxaarada lama dhaho dagaal bay ku jirtaa samaari iyo maxaan ku dhahay qoladan maxaan ku dhahay canfarta lama dhaho binishaangul iyo walayti iyo hiririda lama dhaho gambeelada lama dhaho yacni waxa weeyaan waa deegaano gacanta abiye ku jiro waxa weeyaan aan laga daba hadli karin wey oo waxa weeyaan magaciisa laakiin kuwan waxay noqdeen fawqa qaanuun Ethiopia qaanuunku ka jiray way ka baxsan yihiin iyagu way ka baxsan hadda waxaan arkayay waxay leeyihiin hadda ka hor markaan anagu Ethiopia xukumaynin diyaaradda ka soo kacda ingiriiska diyaaradda toos uga soo duusha waxay toos ugu degi jirtay magaalada Makala iyo garoonkaas waa garoon caalami ah oo Bole International ugu waxba ogeyn dhaqaalaha Ethiopia oo dilbaana la galiyay garoonkaas garoon yar ma ah marka diyaaradda ka soo duusha Mareykanka iyo maxaan ku dhahay Scandinavian ka soo duusha toos waxay u iman jirtay Makala doos u iman jirtay ayadoo soo barin hadda sabab lagu oo waagi hore xukunka haysteen haddana waxaa la yiri diyaaradda ka soo duusha Scandinavian iyo Europe iyo meel kasta ka timaado toos bi ayadoo u soo marin ba iman baa lagu abiyo mana diidi kartid abiyo marka waxa weeyaan waaba ku bariyay xaga siyaasiyiinta iyo wixii dhanba toos u tagay iska badaaba waxa laga dhoofinayna ma oga waxa la keenayna ma oga shaqo kuma laha ana asaga ma xukuma ka dhiganta diyaaradaha kaargooga iyagoo toos ah ayay imanayaan hadda kadib magaalada Makala ma hubba loo soo raray ma nuclear baa loo soo raray ma wax abiye maxaan ku dhahay wixii balacag baa loo soo raray ma lama garanayo marka waxa weeyaan tikreegu niman xiniyahooda fuulay oo fawqa qaanuun abay horta noqdeen waxa ku soo haray Eritrea chance basho waxay ku tiri Eritrea niman yahu siyaasadannadaanu ka dhex arkayna markaanu idin dagaalamayna haddana siyaasadannada ka dhex aragnaa dagaalka aan ku qaadayno maxaan ku dhahaa Ethiopia waxay doontaba ha noqoto qushigeede intii abiye aanu ku taageeray double jibaarkeed baanu idin ku taageerayna ma lacag ba ma dhaqaala ma hubba ma wixiba ma siyaasad ba ma sirdoon ba idinku Ethiopia ma qabsan kartaa dagaal haddii noqotana annaga idin garab taagan ninkii Gabrizion ahaa iyo saraakiisha kale Tigreegu shir baa la galay waxaa la yiri maanta chance-ka aan haysano dib dama nooma soo maray haddaan Eritrea ka diidno oon xusuusano colaadii hore haddaan xasuusano chance-ka dib inooma soo marahay abiye iyo oromaduna 40 sano ee soo socota way joogayaan xukunka haddaan ka diidno waa laba daran mid dooro ma colaadii iyo dhibaatadii Eritrea noo geysatay baan siyaaniyaa sameynaa ila abiya soo kaxaystay mise abiya aanu dusha ka saaraa oo maanta xukunkii baanu isbedel ku sameynaa xukunkaanu isbedel ku sameynaa laakiin Eritrea hal shardi bay ku xidhay gooniyo halka shardi Eritrea ku xidhay waxa weeye Ethiopia kala dira Ethiopia kala dira Ethiopia is haysata maalinkan idan la qabano adeero Soomaalida maxaan ku dhahay futada mooyaha kula jirta maxaan ku dhahay futada meermeerinaysa meel u dhaqaaqaan la sii daaya hadda Mustafaan hadii meesha isbedel ku yimaado Mustafaan waa civilization saad moodaysa ma maalinkaas waxa laga yaabaa hadii la dhaho Ethiopia ku kala taga intiisu uu xidhan ninka Mukhtaar la dhahay dhalada muruqan intiisu uu xidhan Soomaaliduna de cad bay Ethiopia ugu taagan tahay in la kala tagay rabaan Soomaalida sideedaba waxa weeyaan Soomaalidu ma rabaan Ethiopia ma rabaan waxaan akhriyay kumantigoodan akhriyay midnimadu af Soomaaliga barto oroma mooyaan oo chachu soo aytam haya mooyaan boqolkiiba 99 waxay taageersan Eritrea inay guuleysteen oo asaaso kumantiga waa ka aragnaa inay guuleysteen taageersan yihiin sababtoo hadda maalinka ugu dambeysay jijiga laba biro ka hor gabdho iyo wiilal baa ciidamada financigu dhagta ka galiyay oo laayeen hantidoodina waa la dhacay haddii bihi ku soo ogol ayagiina waa la dal wax la dilay iyo wax la dhaawac laga dhigay Soomaalidu marka sabab ay Ethiopia ku jeclaatay ma jirta hadda ogow marka sida aan leenahay waa xukuumadii dawlad deegaanka Soomaalida ka jirta iyo dawladda Ethiopia ka jirta ee Soomaalida ugu roonayd hadda waa tii ugu roonayd ugu macquulsanaydba markaan sidaa leenahay Soomaaliya waa tii ugu roonaydba barkii hadda qofka Soomaaliga xabad wiifto oo finance urida inay kugu dhacdo mooyaane target qofka Soomaaliga ma Muqdisho ka tagi kartaa Hargeysa ka tagi caafimaad baad u tagi ehel baad u tagi ganacsi baad u tagi waxa weeyaan hadda magaalada Jijiga waxa ugu badan waa reer Hargeysa iyo Khaatume iyo Bari iyo Muqdisho ugu badan dadka ka ganacsanay ma garat wala saddex galay ha nooca ay tahay haddana Soomaalidu xaq bay u leeyihiin dawlad deegaanka Soomaalidu inay dawlad gaar oo mustaqila oo Soomaaliyeed oo geeska Afrika ku soo biirta oo naruuro hesha oo xuquuqdeeda hesha oo shidaalkooda la soo baxda
oo waxa weeyaan faqrigan iyo balaayadan Ethiopia ay bartay iyo madax garaacan intay ka baxaan iyagu ma garanaysa ilaahooda caabudo oo si quman inay noqdaan xaq bay u leeyihiin waxaa la yidhi wadanka Singapore hadda ka hor ahaan jiray baa la yidhi wadan aad faqiir u ahaan jiray laakiin de fariida u soo baxay ayaa waxaa la yidhi waxay ka cabsoon jireen baa la yidhi 90% markii qofka Singapore alla weydiiyo qarnigii hore waxay ka cabsoon jireen baa la yidhi faqri ilaahay ba meena aqooninba حتى كوضا مسلمين تا وح دقت تري فقر يبقى دقت تري مركب فقر وسيدي ده بوح الرسول وكم مجن جلوي دول دجان كان أركز الصومالي وحويا إثيوبيا لدقت إثيوبيا أيا لدقت مركب إنا يلفتقوا أي مرورة بالهلال وحرية هلال والمستقبل هلال وعيال كودي محن كل هاي هذا برجي مركي قفصدين نمك لورين جري تي بيرفتو مركي قفصدين عيال كودي يركي اللي يرو قلنا لندن بيتشوف تشرين قلنا وحوي أدسري تشوف تشرين عبرشة دي وحي قدها سومالي ده هل بالوجود حدير تشري أفرتي سنة بهال مركز السومالي وسين تجيل مشوا كذي على كذي على مركز أنا صار دعوة نمك تجريجا أها سيدة ده بوحي سود ديبين أسمر سود ديبين إن ما أنت جوش الباب كودا صاغر جراعة أي كيف أيديستان مركب برنامج كاس وبرنامج كاس وقت يوصل نقول إيران الساعة أوسو جبينه نبان كاس سلوك بيكون تاجيين دجالة دي كاس